looga sameeyaa labada suuq ee la yiraahdo Alibaba iyo Shein sidana looga soo adeegtaa adigoo dabcan faa'iido fiican ka sameynaya alaab raqiisana ka soo iibsanaya ugu horreyn walaal ku soo dhawo YouTube-ka waxaan kaga hadalnaa online business-ka iyo waxyaabaha la xiriira self development-ga horumarinta shakhsiyadda haddii aad mawduucyada jeceshahay noogu soo biir oo subscribe noo saar sidoo kale like noo saar si aad u hesho muuqaalo badan oo runtii faa'iido badan ku gaarsiiyo wax badan aad sanadkan cusub aad ka faa'iido ganacsiga online-ka ahi wuxuu noqday fursadda ugu weyn ee dhalinyarada doonaya in ay lacag ka sameeyaan internet-ka labada platform oo si gaar ah caan u noqday Alibaba iyo Shein muuqaalkan waxaan ku sharixi doonaa sida aad tallaabo ugu bilaabi karto e-commerce adigoo adeegsanaya Alibaba Shein hataa haddii aadan hore dabcan aqoon badan uga lahayn ama aad bilow tahay wadooyinka marka loo maro qodobka koowaad waxaan arki doonaa horta waa maxay Alibaba iyo Shein dabcan waxa laga yaabaa dhagaha ku soo dhaceen laakiin aqoon badan inaad u lahayn ama wax badan inaad ka fahansaneen maxay yihiin Alibaba iyo Shein Alibaba waa suuq caalami ah oo aad ka heli karto alaab jumla ah oo qiimo jaban waxa lagu iibiyaa alaab runtii aad jumla u ah oo qiimaheedu aad u jaban yahay ayaad ka helaysaa Shein sidoo kale waa platform isagu caan ku ah dharka iyo waxyaabaha fashion-ka ah oo si weyn loogu isticmaalo dropshipping iyo dib u iibinta in alaabta laga soo iibsado dib loo iibiyo marka Shein isagu caan wuxuu ku yahay waxyaabaha fashion-ka ee dharka la xiriira iyo waxyaabaha waxa weeye dharka iyo waxyaabaha fashion-ka ah ayuu suuqan caan ku yahay Alibaba isagu waa wholesaler alaab kasta ayaad ka helaysaa shirkado badan baa wax ku iibiya laakiin Shein isagu si gaar ah wuxuu caan ugu yahay dharka iyo waxyaabaha marka fashion-ka la xiriira labadan platform waxay ku ogolaanayaan inaad ganacsi bilowdo adigoo aan dabcan alaab badan ama kharash badan aan gelin inaad alaab yar ka soo iibsato dabcan aad si iibiso faa'iido fiican aad ka samayso marka qodobka koowaad waxaan kaga baxaynaa Alibaba iyo Shein maxay yihiin xagee laga leeyahay horta waxa laga leeyahay wadanka China laga leeyahay labadaba China laga leeyahay waana dabcan suuqyada ugu waaweyn marka laga yimaado suuqa Amazon la yiraahdo marka laga yimaado waa suuqa labaad waa Alibaba suuqa saddexaadna waa Shein طبعا waxa weey labada waxa ku jira labada suuqyada ugu horeeya adduunka ayay ku jiraan qodob kale waxaan arki doonaa sidee loo doortaa alaab faa'iido leh marka aad suuqyadan wax ka soo iibsato alaab faa'iido leh sidee loo doortaa tani waa talaabada ugu muhiimsan marka aad rabto alaab inaad suuqyadan aad ka iibsato dooro alaab baahi loo qabo alaab horta la doonayo alaabta aad iibsanayso horta eeg baahi ma ka jirtaa alaabta ma loo baahan yahay alaab loo baahan yahay horta inaad doorataa laga raba ka fogow alaab aad ugu badan suuqa alaab meel walba laga heli karo hadda tiraba soo iibinay waxa laga yaabaa in aad weydo cid ka iibsatay ama alaabta ay suuq ay yeelan weydo marka ka fogow alaabta suuqa ku badan hubi in alaabtan ay faa'iido aad ka heli karto sababta haddii suuqa alaab waxa laga yaabaa alaha qaar inay qaali yihiin alaha qaar inay jaban yihiin qiimaha marka alaabtan maxay ka faa'iidi kartaa shayga haddii marka hore waxoogaa qaali aha dabcan faa'iidada ka faa'iidi kartaan way yaraanaysaa hadduu aad raqiis u ahaana faa'iidada aad ka faa'iidi kartaa way badanaysaa marka had iyo goor taasna qiimee marka qodobka labaad ka hadlayno marka alaabta aad dooranayso alaab faa'iido leh sida loo doorto waxa weeye saddex talaabo inaad qaadato dooro alaab baahi loo qabo oo baahi dadku u baahan yihiin oo baahi xalinaysa had iyo goor alaab baahi xalinaysa oo loo baahan yahay ka fogow alaab suuqa ku badan iyo alaab marka aad faa'iido ka heli karto oo qiimo faa'iido fiican aad ka heli kartaan iyadana dooro tusaale waxaan soo qaadan karnaa dharka dumarka oo runtii aad dumarku waxa weeye iyada xagga xaragada iyo quruxda ay halka iyaga looga dambeeya marka dharka dumarku kor runtii dhulka ma dhacaan qalabka guryaha oo kale accessories-ka mobilada loo isticmaalo waxyaha mobilada loo isticmaalo iyaguna runtii aad bay suuq u haystaan saacadaha oo kala kamid ah oo kiyaalayaasha runtii waxyaabaha suuqa la ayay kamid yihiin qodobka saddexaad waxaan arki doonaa sidee Alibaba looga iibsado alaab marka Alibaba sidee alaabta looga iibsadaa marka Alibaba isticmaalayso afar talaabo muhiim ah inaad marto si aad alaab aad uga iibsato talaabada koowaad waxa weeye dooro supplier verified ah Alibaba shirkado badan ayaa wax ku iibiyaan alaabta ku iibiya dabcan shirkadaha alaabta soo saareeyba toos ula macaamilaysa marka had iyo goor dooro supplier ama shirkada iibinaysa inay haysato verified calaamada buluug ah marka in Alibaba uu xaqiijiyo calaamad buluug ayna haysato waa inaad iska eegtaa la hadal supplier-ka intaad wax ka iibsan supplier-ka toos u la hadal markiiba alaabta iska dalban la hadal loo gorgorto marka qodobka labaadna waxa weeye la hadal supplier-ka weydii qiimaha alaabta uu siiyo waxa laga yaabaa qiimaha uu meesha ku qoray qiimo ka jaban inuu ka siiyo marka qiimaha kala gorgortan shipping hadii uu dabcan wadanka Soomaaliya iyagu shipping toos uma keenan shirkadaha soo qaada Soomaaliyeed baa soo qaada iyaga marka shipping waxa qaabilsan laakiin hadii wadamada kale aad joogto toos ay kugu keeni karaan iyagana shipping kala gorgortan MOQ-gana iyadana iska MOQ waxa weeye
waa minimum order quantity tirada ugu yar ee shayga laga iibsan karo tusaale waxay ku leeyihiin shaygan intaasa ugu yar oo laga iibsan kara marka iyadana iska eeg oo la gorgorto alaab macnaha number hadii ku shayga 20 xabaad ka iibsan karto laga yaabo 10 xabaad inaad ka rabtay marka iyada lafteeda kala gorgortan kala sameey inta ugu yar shayga laga iibsan karo dalbo sample hadii ay suurtagal tahay hadii aad rabto alaab badan aad doonayso inaad ka iibsato sample ka iibso waxa tiraahdo tusaale shay hal shay oo kale ka iibso shaygaas marka ay ku soo diraan shayga tijaabi hadda shayga ku qanacday kadib marka alaab badan dalbo hadii tusaale business baad waxa doonaysa alaab badan ka soo qaad 500 saacadood ama 600 saacadood baad saacadaha inaad ka iibsato marka ugu horeyso kale 5 saacadood ama 10 saacadood oo kale soo dalbo iyaga tijaabi inay suuq leeyihiin eeg kadib marka intii badnayd aad rabtiin marka ka iibso saas samee marka aad Alibaba waxa ka iibsanayso waxaan afar talaabo muhiim ah qaado talaabada koowaad supplier ka iibinaya waa inuu yahay mid calaamada buluuga haysto oo sax ah waa inuu yahay inaad supplier ka la xiriirdo inaad weydiiso qiimaha shibika alaabta lagu soo qaaday iyo inta weeyra laga iibsan karo in aad dalbato marka sample hadii ay suurtagal tahay tani waxay ka caawinaysaa inaad ka fogaato khiyaano maadaama shaygu toos sample aad uga iibsato aragtida ku qanacday qodobka afraad waxa arki doonaa sida shay looga sameeyo ganacsi sida shay ganacsi looga sameyn kara shay waxa loo isticmaalaa laba siyaabo drop shipping oo ah adigoo aan alaabta hayn inaad iyaga alaabtooda si iibiso oo tusaale ahaan inaad adigu alaabta markaad iibiso iyaga aad marka aad alaabta ka iibsato iyagu alaabta ay qofkii u diraan drop shipping waa sida drop shipping waxa weeye waxaad u dhaxaynaysaa shirkadii shayn iyo qofkii baad u dhaxaynaysaa tusaale qofkii baad keentay lacagta marka ka qaado shay baad alaabta u gudbinaysaa iyaguna alaabta qofka u deliver gareynayaan u geynaya marka drop shipping waa sida qaabka labaad oo ganacsi uga sameyn kartaa waxa weeye inaad alaab aad soo iibsato aad dib u sii iibiso hadda waa aragtay dhalinyar waxa arkaysaa kule waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah Alib Shayn discount weyn buu bixiyaa wuxuu bixiyaa discount weyn marka laba goor saddex goor wax ka iibsato qiimo fiican buu ku sameeynaya waxa laga yaabaa dhalinyar waxa arkaysaa kule Shayn ba wax kaaga dalbaynaa alaabta aad link ka soo dooro qiimaha uu suuqa ku yeelan kugu iibinayna iyagu maxay ka faa'iidayaan isweydiinaysa Soomaa waxay ka faa'iidayaan waxa weeye shayga ka soo qaad alaab ay doonayaan alaabtii markii alaabtooda suuqa ay soo doorteen alaabta suuqa waxay ku taala $200 isagu marka uu promo code-kiisa waxay siinayaan code qiimo dhimisa markuu isagu promo code-kiisa gasho alaabta adiga $200 uu kaaga qaaday waxa laga yaabaa in $80 isaga laga siiyo oo $120 halka ka faa'iido marka halka shayn dhalinyarta ka ganacsada qaabkaas ay sameeyeen iyadana kaartada faahfaahsantay waa muhiim qodobka shan waxa arki doonaa halkee ayaa alaabta lagu iibin karaa marka xagee alaabta ku iibin kartaa hadii aad ka waran aan lahayn meel aad alaabta ku iibis xagee ku iibin kartaa Facebook aad ku iibin kartaa waxay siin ku sameyn kartaa gurigaaga jooga Instagram ka aad ku iibin kartaa TikTok baad sameyn kartaa dukaan ah ayaa sameyn kartaa alaabta ku iibin kartaa WhatsApp business kaaga ayaa alaabta ku iibin kartaa website baad sameysan kartaa alaabta aad ku iibiso marka social media market waa furaha guusha e-commerce social media market ba ka caawinaya alaabta marka aad gurigaaga joogo oo dukaan iyo kare iyo leer midna aan gelin si fudud marka alaabtii aad u sii iibin karto qodobka lixaad waxaan arki doonaa khaladaadka laga fogaado waxa iska ka fogo khaladaadada soo socda ha iibsan alaab adigoon cilbaaris ku sameyn alaabta qaladaadkan waxaan arki doonaa afar qalad oo inta badan ay sameeyaan dadku ha iibsan alaab adigoon cilbaaris ku sameyn alaab aad baarin ha iska iibsan alaabta iska hubi suuq ma leedahay ma la iibsan karaa qiimaheeda wixii doon iska hubi ha ku tiirsanaan hal supplier kaliya waxa laga supplier ka inuu suuqaali yahay mid kale oo qiisayn heli kartaa dhici karta marka hal supplier ha iskaga tiirsanaan supplier badan shirkado badan alaabta iibinaya ka iibso ha iska indha tirin customer service mar walba cid wax ka iibsanaysa iyadana waa inaad qanciso oo kaliya maanta ha eegin qofku maanta wax ka iibsado laakiin brito eeg inuu qofku kugu soo laaban karo ha filan faa'iido degdeg maadaama ganacsigu wuxuu yahay faa'iido degdeg markiiba iska xaawinaya macquul ma noqonayso marka hadii goor samir buu u baahan yahay ganacsi kasta wuxuu u baahan yahay samir iyo qorshe marka afarta qaladna iyagana ka fogow gunaanad waxaan ku soo ururinaynaa Alibaba iyo Shayn waa fursad dhab ah oo aad ganacsi online ka bilaabi karto 2026 haddii aad barato sida saxda ah ee loo adeegsado waxaad dhisi kartaa dakhli joogto ah adigoo gurigaaga jooga haddii aad rabto inaad bilowdo maanta talaabada ugu horeysa waa barashada iyo tijaabin inaad barataa laga rabo marka waxaan ku diyaarinay walaal koorso dhameystiran oo lagu baranayo sida looga soo adeegto Soomaaliya jooga suuqyada Alibaba iyo Shayn qaabka looga adeegto talaabo kasta loo maro sida loo helo drop waxa la yiraahdo shirkadaha alaabta soo qaada kuwa ugu ammaansan ee alaabta Soomaaliya keena dabcan markii alaabta ka iibsato waxa u baahan cid ku soo qaada suuqyada iyagu toos Soomaaliya uma keenaan marka waxa jira shirkado cargo alaabta soo qaada alaabtaada sida aad cargo-ga ugu xiran lahayd cargo-ga uu kugu keen lahaa canshuurta qaabka ay tahay alaabta qiimaha lagu soo qaado xamaaliga qiimuhu uu noqdo waxa soo dhan si fiican koorso loogu baranayo oo kooban
aad ka u kooban Alibaba iyo Shein lagu baranay sidoo kale social media marketing aad ku baranayso sida marka alaabta aad keento baraha bulshada loogu xayeysiiyo oo runtii koorso ka kooban 22 muuqaal ka kooban oo dhammaan talaabo ku baraysa Alibaba qaabka loogu adeegto Shein qaabka looga soo adeegto iyo qaabka social media marketing loo sameeysto intaba marka hadda koorsaad diyaarta iyadana WhatsApp number-ka nagala soo xir description waa yaala muuqaalkana waa ku jira WhatsApp number-ka ka soo qor koorsada u baahanahay waxa lagu soo diraya marka Telegram-ka lagu qaadanaya marka waxa lagu soo diraya link-ka group-ka Telegram-ka marka isdiiwaan geliso marka insha Allah soo dhawow haddii aadan halkaas soo gaartay oo aad like saarin subscribe noo saarin waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saado inta aad faa'iiday darteed haddii aad wax ka faa'iiday waa meeshii marka aad iyo aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.